salaanta islaamka assalaamu calaykum. waxaan u soo kacay inaan aniguna codkayga ku biiriyo doodan socota, hase yeeshee badi qodobadii aan soo qorqortay waa la wada sheegay. xildhibaanadii igu horreeyey saddexdii xildhibaan isku xigay mahad cabdirasaaq iyo xildhibaankii hadda hadlaayay baa kulligood qeexay. waxaan markaa ku soo koobayaa hadalkayga laba qodob oo muhiima oo laga hadlay oo u ah difaac iyo lafdhabar xildhibaanada awooddooda iyo jiritaankooda iyo xasaanadooda. waxaad moodaa xeerka laynoo qaybiyey dhowrka jeer wax badan oo iska wada horjeedaa ku jira, waxaana loo baahan yahay in laga baaraan dego oo si fiican oo degan looga soo shaqeeyo, lagu noqdo haddana lagu sii socdo kii hore ee hore u jiray. qodobka xasaanadda, xildhibaan aan xasaanad lahayn waxaa la soo qoray xeer kale ayaa qeexaya. qodobka waxaa laga soo qaatay dastuurka qodobkiisa 7aad article 70 qodob xarafka 4. saddexda hore ka muhiimsan lama soo qaadin, marka dastuurkuna isagaaba iska wada horjeeda runtii, waana laga shaqaynayaa hadda. marka waxaa weeye xasaanadda xildhibaanada waa waxaynu ku leenahay awoodda, waa waxa laynagu doortay, waa waxaynu ku soconno, aynu ku meel marinayno waajibaadka layna saaray. haddii kale waxba ma nihin. marka waxaan qabaa si adag ugu dardaarmayaa in qodobkaas aan la taabanin oo halkaa lagu qoray dib baa loo soo qorayaa la ilaabo, waayo waa constitutional, way iska horjeedaan. haddaa egtaan qodobka 7aad soo jeedinta oo aan wax badan ka soo qorqoray ma taabanayo, aad baa looga hadlay. soo jeedin lasoo wareejinayo soo jeedin noqon maysa, halkaas meel waxay ku baaba'aysaa. taasina waa awoodda kale aynu lahayn. waxaan ku talin lahaa xeerkan in dib looga noqdo, dib loo dhigo, waqti la siiyo, si fiican ay guddigooga soo baaraan degaan, dibna loo keeno. mudane guddoomiye, mas-uuliyadda ina saaran maanta qaadnay waqtiga la marayo oo waqti aada u adaga, ma aha in la shakhsiyadeeyo shuruucda, waa in shuruucda loo qoraa oo loola niyoodaa mustaqbalka iyo horumarinta iyo magaca baarlamaanka. waayo waxaa dhici doonta inaynu library yeelanno, waxaan oo dhanna la dhigo. markaa inaynu ku si sahlan u boobsiino inagoo ujeeddooyin kale laga leeyahay.